Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halkan waxaan kusoo gudbin doonaa cashar yar oo kooban oo ku saabsan Photoshop-ka sida loogu qurxiyo amaba loogu yara dhalaaliyo amaba background-ka looga bedelo nashqad aad samaysay oo marka background kale loo soo gashado oo tusaale ahaan oo kale background-ka hadaan daruuro lahayn aad daruuro ugu bedeli lahayd. Markaas waxaad sameynaysaa marka Photoshop-kaaga sidan oo kale kugu soo kaco waa CS6 kana isticmaalaya. marka Photoshop ku soo kaco nooc kasta uu yahayba file baad tagaysaa. file marka tagto open baad oranaysaa ama Ctrl+O baad taabanaysaa. Dabeetana marka wuxuu ku geynayaa computer-kaaga ku geynayaa. Marka waxaad tagaysaa halkii uu ku taalan nashqadu. Marka aniga imka desktop-kan ka soo qaadanaya nashqadayda amaba sawirka amaba yani sawirada sida loo dhalaaliyo iyo sida nashqada caadiga loo dhalaaliyo waa just waa same waa isku mid waxba kuma kala duwana. marka waxaan soo qaadanaya imka nashqad kamid ah nashqadahayga aan doonayo inaan yara dhalaaliyo ayaan soo qaadaya. marka tusaale ahaan oo kale bilmasalan ka soo qaad bayna tahay this one taaba ka soo qaadanay tahay tan baa soo qaadaya marka okay tiraahdeed halkan buu ku soo dhigaya marka okay saas oo kale waxaan kugu soo dhigay. marka nashqadan waxaad doonaysaa inaad yara crop garayso intan cad iska jarto daruurta inta bilaa daruurta iska jarto waxyaalaha kala doonaysaa nashqadan aad dhalaaliso ayaa doonaysaa. marka waxaa muhiim ah inaad ogaato mar walba badanaa muhiimka halkaa waxa ku jira wax loo yaqaan layers baa ku jira. imika background-keena halkaa layer baa ku jira waxa ka muuqda sawirkeenaasa ka muuqda. marka wax kastaba halkaas kugu soo qorayaa oo marka shayga sawirkiisana ku soo raacaya. layerskaas aad bay muhiim yihiin oo waxa weeyaan dhowr layer haddii dhowr sawir meesha soo wada geliso tusaale ahaan oo kale aad layer ku soo darto baabuur ku soo darto waxyaalo ku soo darto wuu isdul fulfulaya layeradii. marka layerba layer ka sarreeyo ayuu xaggana ka soo sarreynaya ka soo muuqanaya. marka mid haddaan soo geliyo kale xagga dambe uu gelaya oo ka sarreysay kan. marka halkan waxaa ugu muhiimsan layerkaas ugu muhiimsan. xaggan kale waxaa ku jira tooliska xaggan kaaga muuqda waa kuwa wax lagu edit gareeyo had iyo jeer tusaale ahaan oo kale kan iyo kuwan dhammaantood waxbaa lagu select gareeyaa. ka haddaan saa idhahdo saas u select gareynayaa. waad jari kartaa Ctrl iyo X haddaad tidhaahdo wuu kaa jaraya yani daruurtoodu waayeysa yani kaasi markaa inta isku midabkaa u badanaa ku highlight gareynaya intii markaa isku midaba ayuu ku highlight gareynaya intii isku midaba ku highlight gareynaya. waxaa kaloo jira kan isaga waa lagu select gareeya kan saas oo kale halkan haddaad saa usii furto saa mouse ugu soo yara qabatay shaayar waxaa ku jira iyagoo shapes kala ah waxaa ku jira isagoo sana waxaa ku jira isagoo sana yani saasay u kala duwan yihiin. halkan tanna iyadana waa selection weeyaan tusaale ahaan kale tan iyada waad la raacaysaa wata badan aad loo isticmaalo saas oo kale aad la raacaysaa tusaale ahaan inta daruurta saas oo kale aad ugu soo wareejinaysaa ilaa halkaa tusaale ahaan inta baad siinaysaa taas oo kale dadna u jaraysaa dadna daruurtaadii kale halkaa soo dhigaysaa. haddaad doonaysa inaad wixii aad samaysay imika Ctrl+X waa cut way dhigataa Ctrl+X haddaad doonto waxaad tegi kartaa edit dabeetana cut ama Ctrl+X ama cut yani waa isku mid. copy-na waa Ctrl+C ama halkan intaad edit tidhahdid copy ku dhuf laba toolba waa useful. cut haddaad tidhahdid okay. haddaan doonayo caddaankaa laftiisa inaan kasii biiyo meesha this one baad soo qaadanaysaa waad ku dhufanaysaa yani imika saa BSD baa la idhahdaa waxa laali wax ka dambeeya imika ma jiraan sawirkaygii. marka wixii kalaan doonayo ayaan soo dhiganaya. marka tusaale ahaan imika haddaan doonayo daruur inaan soo dhigo daruurtii baan tegaya daruur baan soo qaaday file baan leeyahay open baan leeyahay waxaan tegayaa marka halkay daruur ii yaaleen waxaa ii yaalan aniga documents material baan deetana tegaya material baan ku dhuftay yani daruurahaygu waa kuwan. marka bilmasalan tusaale ahaan kale ta ku habboon ayaan soo qaadaya taaba ka soo qaad okay baan leeyahay. halkan buu iyadana markaa ay dhigay kaygii kalena markaa halkaa sidii Windowskii buu laba daaqadood furay tan waa nashqadaydii hore tanna waxa weeyaan tii aan soo geliyay markii dambe. Ctrl+A baan taabanaya waan wada highlight gareynaya marka Ctrl+A marka tidhahdid waa highlight garee. Ctrl+C baan taabanaya waa copy Ctrl+C waa copy dabeetana waxaan tegayaa kii aan doonayay dabadiisana wax soo dhigo
control iyo v baan taabanaya waa control plus v ayaan taabanaya control shad barwalba horreysiinsa yani sawirkayga isagoo yan waa halkaas soo dhigay halkan layerskina layer cusub igu soo daray kale layer 0 ba layer 1 weyn marka waxaan sameynayaa ka move toolkaasaan ku dhufanaya marka move toolka ku dhufto shaygii aan doonaya markaa dooranay kan haddaan doorto kan boimka afar geeskaasi ugu wareegsanyay haddaan kaa doortana waa kaa kanna uu isla bedelay waa inaad ogaataa kan markaan doorto waa kaa waana shaqadii weyneyd daruurtii markaan doortana waa kaa saasaad markaa ula soconaysaa ma garanaysaaye in layerskani badanaa ay la shaqeynayaan hadba shayga select garaysa marka imika kaa markaan doorto imika daruurta ma edit garayn karaa wax ka bedeli karaa kan markaan doortana imika gurigaan edit garayn karaa wax ka bedeli karaa layerkan wuxuu kuu sheegayaa shaygaad edit garaynaysa ama aad wax ka bedeli karaysid marka imika waxaan doonaya in wax ka bedelo halkanna waad tegi kartaa kanna waad ka bedeli kartaa arrowga inta tagtina kan kaad clicksiisa uu kuu soo qadanaya haddii uu kuu soo qaban waayo arrowgaas waxa weeyaan kaasaan kuu dooray ka haddaan tigta ka qaada imika yani ma aragta ma dooran karayo waxba kale ma dooran karayo inaan xaggan ka bedelo taa ka xaggan ka bedel xaggan waka kan inaad ka bedesho mooyaane yani kii caadiga ahaa ee saa simbalka ahaa ee arrowgii noo bedelaya ma jirto markaad ku dhufato kuwan haddaan joogto auto selectki way kaa baaba'aysa halkaasay ku jirta auto select yani imika arrowgaasaan doortay arrowga markaan doortay halkaas sare waxaa iga soo baxday auto select waxa la dhahaa auto selectgaasaa tigta saaraysa then waad aragtaa kan baan click siinaya ma aragta layerku isbedelay kan baan click siiyay layerku isbedelay marka waxaan sameynaya daruurta doonaya in edgareeyo daruurtaan tegaya afar gees tayaar baa igu samaysmaysa saasaan u qaadaya deetana waan qaadi karaa markaa imika arrowgaygan saintan ugu dhejiyo saintan u saarto ood mouska saa ugu hayso dhinaca midig adoo mouska saa ugu haya oo saa ugu xijinaya ayaad saa mouskaaga u dhaqdhaqaajinaysa adoo farta ku haya then waan kala jiijiidi karaa markaa kuwaas kaasaan qabanaya xaggaasaan ujeedaya kan kalean qabanaya markay saa bahashaydu noqoto ayaan xaggaa ujeedaya kan kalena hoos baan ujeedaya kan kalena hoosaan ujeedaya marka waa inaad ogaataa deetana markaan saa idhahdo imika ama kuwaasaa mid ku dhufanaya ama inter baan siinaya kuwa haddaan ku dhufto apply baad leedahay okay marka imika haddaba waxa weeyaan markii aan yara weyneeyey daruurtaydii waxa iga qarisay gurigeygii sababta iga qarisay wax kale maaha labada layer baa kala sarreeya mar walba layerka sarreeya ayaa xaggan kaga soo sarreynaya marka waxaan sameynaya labadan layer baan isweydaarinaya labadaa layer ayaan isweydaarinaya si ay daruurta xagga dambe u marto okay daruurta imika xaggii dambe martay ka noqo yara edit gare haddaad doonto saas oo kale tusaalahaan oo kale saa u socdaatiyo meesha kasii cas okay apply baad leedahay ama inter box intaa markaan sameeyo waxaan doonayaa inaan kuwan wax ka yara jaro intaan cad iska jaro crop baan tegayaa crop markaan ku dhufto wuu i highlight gareysay markaan bahalkaygii kaasaan saa u qabanaya saasaan soo jeedaya tusaalahaan kale intaa barta then meeshan doona ama inter baan siinayaa ama kuwan baan mid ku dhufanaya deetana crop baan odhanaya intaa markaan sameeyo waxaad ogaataa imika tusaale ahaan oo kale waxaad doonaysaa inaad yara caddayso tusaale ahaan oo kale already inkastoo kani renderkiisu iska fiicnaayo cad yahayba haddaad doonaysaa inaad brightnesska ku yara kordhiso waxaad tegaysaa layerka shayga doonaysa brightnesska inaad ku kordhiso kan haddaad doonto iskaba qari kan halkaa yar haddaad ka qaado noorkaa yar uu kaa qarsoomaya ma delete garoobayo se laakiin kaa qarsoomaya haddaad ku celisana kuusoo muuqanaya marka haddaad doonto xitaa markaad shay edit garinaysid kan kale waa iska qarin kartaa deetana layerkiisa tegi karta marka imika waxaan doonaya shaygan doonaya inaan caddeeya waxa weeyaan waa guriga marka layer 0 waxa weeyaan layerkii bahalkii layerkii waxa weeyaan layerkii marka waxaan doonayaa inaan yara mar haddaan doonaya inaan yara caddeeyo waxaan tegayaa layerkaan doonaya inaan caddeeyo layers baan tegayaa marka tusaale ahaan oo kale sorry layerka haddaad doonaysa inaad koobiyeyso tusaale ahaan kale layer 0 buu ahaa control iyo j haddaan taabto wuu koobiyoonaya control iyo j يعني كان هوري هذا دوتو اسك ديليت غرين karta mararka qaarkood baa laga yaabaa inaan si caadi ah kugu shaqeyn baa laga yaabaa marka waa iska dheeliid gareyn karaysa intaa markaan sameeyo layerkii aan doonayna caddeyn tagaya waa gurigaan idhi guriga waa layerkiisii deetana halkan sare waxay yaalaa adjustments ayaa yaala adjustments aan ku dhufanayaa then waxaan kasii dooranayaa markaa taa ay ku qorantay curves
curves baan ku dhufanayaa curves markaan ku dhufto bilmasala tusaalaha kale saa halka haddaad kor u jido yacni waxa weeyaan waa caddee yani waa caddee iftiinkii ku furaya inaad ku badisana maaha xaggan haddaad hoos u yara celisana waxa weeyaan yani contrastigii uu yara magaranaysaye adkeynaya haddaad doonto coloriska iyo waxaa halkaas ka dooran kartaa yani intaas ayaa kaaga filan inaad yara caddaysid halkan waxa weeyaan waa coloriskii weeyaan waa coloriskii haddaad doonaysa inaad wax ka bedelasho coloriska weeyaan se laakiin badanaaba haddii aanaad mar advance ahayn inaad defaultigooda iskaga daysid ayaa qurux badan inaad defaultiga iskaga daysid baa qurux badan oo badanaa black and white baa kalkaa noqonaya aduu inaad kalaradan magaranaysaa habaysaabaa la doonayaa oo sidoodii kusoo celiso marka waad iska daynaysaa kuwan defaultigeedan iskaga daynaynaa this one iyaguna waa colorisun marka ma doonayo inaan waxba ka bedbedelo sidiisaas iskaga daynaya marka intaasina waa caddaynta weeyaan sida loo caddeeyo marka inaha marka aad ku samayso backgroundka aad ka bedesho daruur iyo wax kusoo bedelato caddaysana bahalkaagii waad save garayn karaysaa markaa sawirkaaga save garaysaa file baad tegaysaa save as baad leedahay markaa save as ayaad ku dhufanaysaa save as markaad ku dhufatid halkan hoose halkan horta magacaada bixinaysaa tusaale ahaan oo kale waxaan bixinayaa tusaale oo kale lesson 1 oo kale then xaggan hoose aad ku dhufanaysaa waxaad leedahay markaa tusaale ahaan oo kale gbg gaas aad dooranaysaa oo sawirka kaga dhigaya haddii kale wax kale waxaa noqonaya save baad deetan leedahay save ayaad leedahay then okay baad leedahay hoos baad isaga soo minimize garanaysaa deetana lesson 1 ayaan tegaya ku dhufanaya wakaa markaa imika gurigayga u soo baxay run ahaantii aad bu sidii hore uga cad yahay oo magaranaysaa clear more clear weeyaan wax kalena maan sameynaya waxa weeyaan brightnesskii aan yara kordhiyey weeyaan waayo waad aragtaa si clear u muuqanaya marka insha allahu tacaala saas oo kale u samayn doontaan aad iyo aad baa umahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu